kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii koowaad ee sheekada ayaan daran. Asli waxay ahayd gabar aad iyo aad u qurux badan, baarinimadeeda iyo farxadeeda joogtada ahayd baa soo jiibatay galgacal gaar ah oo waalidiinteeda ay u qabeen dariska iyo qaraabada si gooni bay carabka ugu hayn jireen. guriga Asli wuxuu ahaa golo ay ku kulmaan gabdhaha saageeda ayagoo u soo xiisi jiray sheekadeeda Asli oo markay bilaawdo dadka dhanka qoslin jirtay. Asli inkastoo ay 16 jir ahayd misna meel fog bay wax ka arki jirtay, waxaana ay la macaamiloon jirtay dadka ka daada weyn. waxaa loo yaqiinay Farxaan, waayo iyadoo caraysan weli lama arag cidina ma soo sheegin. waalidka Asli waxay siin jireen wax alaalo wixii ay u baahato. waxay aad u jecleed riwaayadaha iyo shaleemooyinka hindiga ahi. markii ay magaalada aadayso iyo goortay ka soo laabanayso cidina isma weydiin jirin, waalidkuna xuriyad buuxda bay siiyeen ayagoo kalsooni buuxa ku qaba in Asli aysan wax xumaata u keeni doonin. Asli oo dhigan jirtay dugsiga dhexe ee macallin jaamac wax saaxiib ah oo u gaar ah ma lahayn. gabdhaha xaafadda oo dhan iyo kuwa dugsiga isku barteen gadi way jeclaayeen guriga Aslina markasta way ku soo booqan jireen. Cali Amuur waxay walaalo ahayn Asli, wuxuuna ka weynaa 3 sano iyo dhaadhicin, maadaama Amuur iyo Asli ay ahaayeen labada ood aan loo dhaxayn. waxay isku hayeen galgacel wada dhalasho kii ugu weynaa. Amuur wuxuu galay Xalane, wuxuuna ka mid noqday macallimiinta BB, waxaana loo bedelay degmada Beledweyne. inkastoo uusan waligii ka bixin Amuur Xamar, misna ma ahayn dadka isku dhajiyo goobta ay ku dhasheen oo wuxuu jeclaa inuu gobolada dalka oo dhan tago. markii Amuur uu ambaxay Beledweyne waxa sii sagootiyay cidii oo dhan, waxaana la sii dardaarmay oo u sii duceeyay labadiisa waalid. Asli aad bay uga xumayd in Amuur ka tago, waayo walaal kale oo wehliya ma ay qabin marka laga reebo Aamino oo 3 jir ahayd. markii baabuurkii dhaqaaqay qoyskii gacantay wada luleen ayagoo leh nabadgelyo soo noqo adigoo nabada. hooyo jaaw Asli jaaw aaba nabade buu si farxad leh Amuur ku yiri. Asli oo qoslaysa baacod aan la hubin inuu maqlay Cali Amuur ku tiri aboowe Cali beerlula igu salaan. Cambaro oo ahayd hooyadeed baa intay Asli gacanta soo qabatay ku tiri na beerluladaada maahe dadkii ka tagay inakeen. hooyo macaan markii dugsiga la xiro Amuur baan aadaya iyo asiga imaanaye bay Asli hooyadeed ku murmeen. aw jaamac oo ahaa duqii reerka intuu taksiga joojiyo ku yiri war soo dhaqaaqa aadkii madoobaye. dugsiga macallin jaamac Asli waxay ku baratay gabar ugu yaraan 5 sano ka weyn oo la yiraahdo Canab oo ay isku fasal noqdeen. Canab waxay ka dhalatay qoys aad ugu dhagan dhaqankii hore, loona ogoleen gabadhu inay guriga ka baxdo amar la'aan. haddii ay soo daahdana ul iyo suunka aabaheed baa lala dhici jiray. cadaadiska Canab qoysku ay ku hayeen kama nabadgelin in ay ku kacdo xumaatadii waalidku ay ka cabsanayeen. Canab ayadoo marmarsiyo macquul ah sheeganaysa bay balan la dhigan jirtay rag aan mustaqbalkeeda dan ka lahayn, waxayna gaartay heer ay qaadka haddii aynan cunin xayraanto. sigaarkana midba mid bay ku daari jirtay. Shariif Macow iyo Xaaji Xaliimo oo ahaa waalidka Canab waxba kama ogeyn amuuraha dhacaya, waxayna la ahayd maadaama aan cidina gurigooda soo gelin in gabadhoodu ay bad qabto. Asli waxay tagi jirtay guriga Canab oo cidii oo dhan bay isbartay. Canabna sidoo kale ay ahayd. maalin maalmaha ka mid ah waxaa Canab iyo Asli dhex maray doodan soo socota. Canab baa ku bilowday walaal Asli horta saaxiib ma leedahay? Asli ayaa ku jawaabtay saaxiib maya malihi, adiguna ilaahay saaxiib la'aan ima dhigo. sanadkii hore waxaan saaxiib la ahaa wiil magacii la yiraahdo Axmed oo sarkaal ahaa. waan isdagaalnay kadibna waxaan la saaxiibay wiil kale oo macallin ah, isna waan heshiin weynay. sanadkanna waxaan bartay wiil kale oo caafimaadka ka shaqeeya oo ah inaan aad u dabci fiican, waana aad taqaan waa wiilkii galabkii aan imtixaanka u soo noqonaynay ilinka noo taagnaa oo aan taksiga wada raacnay. kadibna labadaynu ayna gudubnay, waxaana magacii la yiraahdaa Khaliif. Asli waxaa ka soo haray dheegag iyo dhafoor haysasho. farxii lagu aqoon jirayna wuxuu isu bedelay yaab, waayo kama ay fileen saaxiibteed barnaamijka ay guda gashay. Asli oo yaaban baa waxay tiri halka hayno joogto daawadayaal qaybtii koowaad ee sheekada ayaan daran.
haddii aad ku cusub tahay channelka Hodan Jimcaale subscribe saar haddii aad ka hesho sheekada aan soo gelin like garay haddii aad jeceshahay inaad la wadaagto asxaabtaadana share garay aad baad ugu mahadsan tahay daawashadaada